madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose dhammaan waan salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaan cabasho ka nahay oon ka cabanaynaa safiirka ummadda Soomaaliyeed meeshaan u joogo waxaan leeyahay ra'iisul wasaare Cali Khayre ballanqaado ummadda uga dhabay ee safaaradahan dibadda ku yaalo oo ummadda ku noqday magafa la leeyahay magafa waa wax fudud magafa waa wax easy magafa wax weyn ma magafa inaad lacag sidaad ka soo baxee magafa wax ka xunaa meeshaan noo fadhiyo ra'iisul wasaare Cali Khayre waxaan ka codsanaa inuu ninkaan naga qabto waxa lagu leeyahay markaad u tagtid Milan ka imid aad tira waxa lagu leeyahay Milan may dagaal naga la dhaxeeyo war ummadda Soomaaliyeed calankaasi ay wada hoos joogtaa qofka oo dagaalka kala dhaxeeyo qof shacab mu dagaalka kala dhaxeeyo dawladda Soomaaliya ugu sheegi jirtay war wax ugu ka darana meeshaan noo joogo ummadda Soomaaliyeed ha naga qabato tusana horta ummadda islaamka ah ee gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ka hadlanaa horta waa dhibaato jirta annagu cidna weerar kuma nihin annagu cidna ma diidanin waxa aanu maanta dalkan ajnabiga aanu ku nahay waxaanu ku joognaa waa xushmad iyo heshiis ay dawladda Soomaaliyeed loo hayo waliba محمد عبد الله فرماجة يا حسن علي خير waxay tilmaameen qof kasta oo muwaadina in meesha uu ku dhibaataysan yahay loogu tago dhibkiisii la ogaado hadii uu dhib jirana la yiraahdo dhibkiya sidoo u jira wax looga qabto hadii aan dhib jirina barti laga sii ambaqaado hadii la doonayo cadayn sida safiir ambassador ka qaabilsan midowga Yurub London maruu shir u joogay aanu fiidiyogiisa ku daawanay wuxuu yiri dhalinyaradan waxa looga baahan yahay cadayn ambassador horta cadayntii waa ku haynaa wax khaldan namaad weydiin qofka bilaadanka arab iyo labadiisa daanba ugu dhow ways qaniinaan okay hays qaniineen sidee loo xaliyaaba horta loo yimaada waxa la yiraahdaa caanadaadi dabadood la qabay anagu safiirka Soomaaliya u fadhiya wadanka Talyaaniga hadii aanu ka khaldanahay waxaanu diyaar u nahay inaanu dhashayiisi baanu nahay muwaadiniin Soomaaliya aanu nahay waxaanu diyaar u nahay xal iyo apologies hadii uu safiirku naga khaldan yahay waxaan u baahanahay qaabeeshkii aad nooga qaban lahaydeen in uu nagu hayo anaga respect uu noo hayaa horta ama ixtiraam uu noo hayaa hadaan Soomaalinahay oo aan gobolkan ka soo jeednaa ma jirto kiiska wiilka dhintay oo yaala oo talaajad ku jiray ayaan ilaa iyo hadda safiirku uusan ka hadlin kii labaad halkan dhinacayga waxa isku dilay laba wiil oo muwaadin oo Soomaaliya oo mid la dilay sababta laba bil buu kooma ku jiray war xitaa familkiisi muu xidhiidhin muu oran sababtu uu oran waayay familkiisi ninka arrimaha uu la socodsiin waayay oo uga damqan waayay ee Soomaalnimo uga damqan waayay ee muwaadinimo uga damqan waayay ee xilka iyo xaajada uu maanta fadhiyo iyo xilka uu noo qaaday uu uga damqan laayay isaga taas u taala waana arrin aanu cadaynteedii iyo kiiskeedii loojiga haysano waxa bila cadaynana annagu kuma socono waxaa dhacday iyadoo taasi dhacday inuu wiil saddexaad tareen ku jiray gobolka anagu aanu deganahay saddexda kiisba gobolkan ka dhacay ilaa iyo maanta ilaa maalintii uu wiilku tareen ku jiray wiilkii wuxuu ku jiraa talaajad hilibkiisi wuu gogo'ay xubnihiisi way gogo'een muwaadinimada uu sheeganaya Soomaaliya uu leeyahay xil baan u hayaa ee uu ambassadorka midowga Yurub qaabilsan uu ku taageeray leeyahay ninkaas aad baan u qaanay dawladdu u soo shaqeeyay maxay tahay waxaan doonayaa halkan inaan idinka soo gudbiyo dhibaato aad u baan oo nahaysata haddaanu nahay dhalinyarta ku nool wadanka Talyaaniga gaar ahaan gobolka Lombardia dhibaatadaasi oo uu nagu hayo safiirka Soomaaliya u qaabilsan wadanka Talyaaniga ee fadhigiisu yahay magaalada Roma dhibaatadaasi oo haddaan idin sii faahfaahiyo ay tahay inaanu sharciyada aanu ka qaadan jirnay Talyaaniga laba sharci oo kamid ah uu yiri waa inay qaataan passport Soomaali oo aan ciriga dhultoona looga iman oo amar ah uu isagu wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha uu siiyay taasi oo marka aanu sharciyada qaadanay natiijadana noo sheego nagu qasbay inaanu doonano passport Soomaali waaye passport Soomaaligi ma shaqeynayo waa la ogyahay diblomaasiga ma shaqeynayo iska dakay kale dadweynaha annagu ma awoodno mana qaadan karno nolosha aan ku noolay Talyaanigana Ilaahay baa qiyaasi kara waa xaalad aad u adag nin walba si buu nool yahay dhalinyarta meesha joogta qaar baa darbiyada jiifa qaar baa magaalada dhexdeeda quraarada isku galiya gobolka Lombardia qaar way dhinteen kii kala quraarada galiya wuu xiran yahay sida la ajligeed safiirku hortu yuu safiiru yahay
ومد كوبادي دولة الصومالية سيء أسوأ مقعوضة مقارن أننا هين با مثل دولة التليانية أسوأ مقعوضين لو شقيونو لأن يرتيس الصومالية اللي بعتها هي ستا آنو وحكا قبل كلام كذي أنا كعيد معاينه عيد ما فضيح هذين إنه عيد ما هيسنو اللي بعتها يدنا هي ستا إننا لحليو أو نبكنا نجوها إننا نجد دايون عطانينا halkan caawa ahaan waxaan halkan iskugu nimidnay oonu ka hadlaynaa waxa weeye annagoon tix raacaynin hadalkii mas-uuliyad darrada ahayd ee uu ku soo jawaabay safiirkeenna u fadhiya dalkeena Soomaaliya Rooma annagoon tix raacaynin ayaa waxaan garanay inaan cadayno dhibtan mar walba joogtada ah ee socota inaan cadayno ayaan garanay kana jawaabno hadalka dhilada xun ah ee uu yiri dhammaan dadka ku nool gobolka Lambardia waliba Lambardia kaliya tuniyana oranine ku dhaqan Talyaaniga rag iyo dumar cid necab horumarka dalka Soomaaliya ama ka soo horjeeda ama dalkooda necabi midna kuma jiro waxaan kaloon idinku darayaa cid diidan nidaamka iyo horumarka dalkeena Soomaaliya cid diidan inaanay jirin laakiin waxaanu diidanahay oo maanta halkan iskugu nimid waxay tahay hadalka xun ee farsamada xumada iyo jawaab xumada ah ee uu yiri safiirkaasi ayaan ka jawaab bixinaynaa kuna cadaynaynaa dhibtan mar walba soo noqnoqonaysa ee nagu soo noqnoqonaysa aan dhamaanaynin ayaan cadaynaynaa caalamkana tusaynaa dalkeenina tusaynaa adduunyadana tusaynaa dadka maanta aan matalaynayna tusaynaa waxaan leeyahay ninkan horta safiir idinkaa u arkee anagu waxaan u aragnaaba inuu nolol diid yahay waxa la sheegay inuu lahaa waxa la yiri waa la caayo waxa la yiri ma gafaatay waxaan ugu darayaa inuu yahay nin nolol diid dadka u diidan noloshooda inuu uu yahay halka maanta ninka safiirka ah ee uu madaxweynaheenaasi inoo soo diray inuu noo soo adeego waliba uu inoogu soo diray in uu ku tuntay aadanimadii guud iyo tii gaar iyo tii Soomaalinimada uu ku tuntay oo una fiirin dhibta jirta ee uu fiiriyay shakhsiyadiisa gaarka ah iyo horumar iyo 30 euro iyo lacagaha uu ku sheegayo iyo 160 euro ee uu ku sheegay aan mar kale go'aansanay inaan soo hor fariisano warbaahinta ujeedada aan shirkeenna jaraa'id u qabanayno oo aan halkaan caawa u fadhino oo mas'uuliyiintii maxay ahaatay guddigii jaaliyadda Milaan ay meesha ay fadhiyaan ujeedadeena waxay ahayd in aan hal shay kaliya sameeyno waxay ahayd inaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan mas'uul iyo shacab inaan u muujino inaan tusno inaan u cadayno dhibaatada meeshan ka jirta oo maalin dhaweeto kicisay dadkii meeshan ku noolaa oo ay ka dhiidhiyeen dhibaato haysay oo aan aragnay jawaab aan kulley mid u cuntanta ahayn oo laga bixiyay taas oo keentay in dad badan ay na soo xiriiriyaan nagu eedeeyaan inaan annagu gafnay safiirkii inaan maaragtay qalad ku kacnay taas awgeed iyadoo taa laga duulayo waxaan hadda go'aan ku gaarnay inaan muujino sharaxno cid walbana aan u muujino tusno dhibaatada halka naga haysata inaysan ahayn mid aan ku doonaynay inaan qofna sumcadiisa wax ugu dhinno aqoonsiga baasaboorka oo aan wax ka weydiiyana wuxuu noo sheegay baasaboorka Soomaaliga inuusan aqoonsi haysan inuu qiran yahay asaga laftigiisu laakiin loo baahan yahay dadka Soomaalida ah oo qaxootiga ah inay baasaboorka inta qaataan aqoonsi u raadiyaan caalamka dawladaha wax raadi jirtay aqoonsi raadi jirtay dad dawladaha kale la xaajo jirtay waxaan haynaa safiir lahaya la xaajooda dawladaha Yurub oo ku socodsiya baasaboorka Soomaaliga si ay u aqoonsadaan taasna waa mid aan kulli cid walbaba
cid walba oo maaragtay arrintaas ay maqashana ay maaragtay ka yaabi doonto waxaan soo jeedinay baaq aan ku doonaynay in arrintaa lagu xalliyo waxaa soo baxday dhalinyaradu inay maalin isu yimideen kadib aniga ay ii yeereen waxay iga weydiiyeen arrintii safaaradda ama safiirka heshiiskii iyo wadahadalkii arrintii noo socotay waxaan u sheegay in maaragtay ay ku soo gabangowday in dadku baasaboorkaas inay qaataan ay qasab tahay ama meel ha ku aadaan ayay ku aadin saraakiisha safaaradda qaar ka mid oo la hadalnana waxay noo sheegeen qofku haddii uu doono wuu qaadanaa baasaboorka Soomaaliga kadib meeshuu doono ha la aado ama guriga ha dhigto asaga u taallaa taas waa dhibaato jirta waaye waxaan la wadaagnay subaxaas safaaradda waa u sheegnay dadkii markaan u sheegnana intii markaas meesha joogtay baa qiirooday oo arrintii ka gilgishay hadlay hal eray oo uu safiirku dhibsaday oo uu yiri magafaad igu tilmaamteen magafo waaye safiirku aad tiraahdeen baa jiray maalinka wixii ka dambeeyay annagu waxaan cadaynaynaa in dadkeena Soomaaliyeed culayskii haystay in loo sii laban laabay aan cadaynaynaa safiirku inuu sii laban laabay maalmihii horeyta waxa uu soo amray inaan reer Milaano wax ka socdo shaqsi ka socdaa inuusan safaaradda irda ka soo gali karin wiilashii tagayaan haynaa marqaatigooda cid alla cidii doonaysaan hadda tusaaleynaa waana tusaynaa dadkii inta tageen loo soo diidan haynaa cadayn buuxdaan haynaa oo dhiibaynaa dukumiinti asaga 180 warqadood oo soo dhiibay annagu intoo kale dukumiinti cadayn ah oo wax walba ama erey kasta aan ku cadaynanaan haynaa arrintaas marka waxay gaartay in dadkii dhibaatadii haysatay mid ka sii daran ay qabsato warqad iska badaaye inay warqada doontaan iska badaaye iridda marka galaan Milaano ma ka timid waxba meeshan la kaga qabanaya la leeyahay safiirkaana amarka bixiyay loo sheegay hadda wixii taga safaaradda arrintaas waa laga joojiyay laakiin si la mid ah faquuq weyna meesha ka jira ninkaana ugu dambeeyo tagay maalin dhaweeto waadna arkaydeen sida uu uga cabaadayay arrinta uu ka sheegayay in bilaa xushmad dadkii lagu dhaqmaayo cid soo dhaweynaysa ama cid la hadlaysa sajin marka uu Milaano sheegana dhibaatada ay sii balaaranayso waxaan rabnaa marka annagu haddaan annagu marka dhibaatadeeni doonoon inaan xallisano aan doono safiirku warqadu nala daba jooga immigrationadii warqada u qaybina xafiiskan galnaba warqadu ka daba geeyna xafiiskan heshiis la soo galno oo niraado war dhibaatadan hanaloo qiimeeyaba warqadu nala daba jooga taa in caalamku arko ummadda Soomaaliyeed ay aragto madaxda Soomaaliya ay ogaato inaan aamusi doono inaan aamusinan go'aansanay oo aan arrinteena cadeyno